barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir ay weheliyaan taliyaha qaybta 12aad iyo waliba abaandulaha qaybta 7aad ee ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa maanta gaaray degmada Dabataag ee gobolka Sool waxayna halkaas kala qayb galeen bulshada degmada Dabataag kulan lagu xoojinayo nabadgelyadii dhawaan lagu soo xiray deegaanada koonfurta gobolka Sool cuqaasha iyo waxgaradka degmada Dabataag ayaa soo dhaweeyay wafdigani iyagoona ka dhawaajiyay inay haatan nabadgelyo tahay koonfurta gobolka Sool ayna u baahan yihiin xasiloonida iyo nabadgelyada farxad noogu filan mar haddii Dabataag oo ay u sugan tahay qudwa maanta oo nabiga kaleey salaatu salaam waa la socotaan oo wuxuu yiri qofka islaamka dhexdiisa shay wanaagsan sameeya ajarkeedu leeyahay cidii kaga dayataana ajarkeeday leedahay qolana laga nusqaamin maayo ajarkoodii horta sunna wanaagsan baad jidayseen ilaahay ha idinku barwaaqeey nabadgelyada haddaanu nahay reer Dabataageed sida maanta nooga keen muuqata oo aanu ugu alla barinay oo aanu ugu ducaysanay bay naga tahay dadweynaha sharafta leh reer Dabataageed ee agaasimay ducadan ee qaybta weyn ka qaatay culimada oo kuwa iyagu nabadda asaaska wahaa shalay baynu soo weyn wixii halkan ka dhacay baynu ogeyn ilaahay barwaaqada iyo nabadaas inoogu bedelay ilaahay lagu xamdiyo oo lagu xamdin noqo ayaa waajib nagu ah waftigan oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir iyaguna halkaas kala hadlay bulshadii ayaa ku adkeeyay inay ilaaliyaan nabadgelyada ninba wuxuu oran jiray alla ba aqbal nabadii halkan way xidhantay ilaahayna waa aqbalay ilaahu noo taamiyeel baanu leenahay waxaan ku darayaa waxa la yiraahdo bogcaduhu way isu faanaan ummadda qaryada degan way isu faantaa halkan ciidan iyo shacab saraakiil iyo cuqaal iyo waxgarad dhalinyaro iyo dumar iyo dhalinyaro odayaal mid degaan iyo mid soo guurta aad iyo aad baa halkan la isugu dubarhiday wax wanaagsan oo ilaahay raali ka yahay duwan tahay shirarka kale iyo xafladaha kale waxay kaga duwan tahay ayadoo ay calaamad u tahay nabad isdhexgal iyo horumar ay sameysay bulshada reer Dabataageed ee uu madaxda u yahay taliyaha guutada 18aad gaashaanla dhexe Baasha Maxamed Guun ayagana oo la igu sheegay in 25 yihiin 11 dumar iyo 14 rag 13 rag ayagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa halkan in laga sheego oo laga xuso xaq bay u leeyihiin gudidu kama koobnayn oo kaliya rag iyo dumar bay ka koobnaayeen deegaamada kale ee la midka ahina kollay marka imaka arkaan xitaa kii calooshiisa wax ku jireen halkan ay ka sheegayseen way ka baxaysaa oo ku dayasho isaguna mudnaanaya bal inuu ku daydo reer Dabataageed mid kasta isku dayi doona haddii barhaali ka noqdo cid kasta oo maqashay oo islaama marka Soomaaliya xitaa laga tago colaadan ayaguna way ku farxayaan xaqiiqiyan ilaahay ugu bedelay cid waliba barwaaqada roobkeed aaday dawaarkaysan maanta baad kan baxay halkan ku soo maray meel aan ku arkay ma jirto dhulka ilaa ay Hargeysa waan kay waqtiguna gaaban yahay runtii farxadan xafladan farxada balaaran xitaa caruurihii 3 jir bay muuqdaan nabad ka soo qayb galay maanta iyo ku dhawarka ugu jiray aad reedo taagu mahadsan yihiin runtii aad iyo aad baan farxad galisay oo wax qiimo gaar ah u leeyahay deegaanka reer Dabataageed dhamaantood dad badan baa Dabataag degaa runtii marka laga hadlo horena laga hadlay beelo fara badan baa degaa waa halka Muuse Mire sheegay wuxuu malaynayaa labada qolo markay waalaayeen de ninka madaxyeen waa iska waalaasna hadda ku baaqmayno nabadda hal qaab nabadii waynu qaadanay waynu ku dhaqanay maanta waxaynu joognaa waa xaflad loogu ducaysanayo nabadii la helay loogu alla baryayo dadka reer Dabataageed ay soo qaabiyeen ilaahay ku bariyaan annagu waxaan magacawnay haddaan nahay maamulka gobolka gudiyo fara badan oo aanu magacawnay tuulooyin fara badan ama ha ahaadeen kuwa reerahan degaan ama ha ahaadeen kuwa ay wada degaan ama ha ahaadeen kuwa kale ee beelaha kala degaanba annagoo gudiyada ka wadnay inay ka shaqeeyaan horumarka deegaanka marka ay joogaan waxaan oran karaa oo halkan ka qariya hortiina oo faanahayn oo run oo ilaahay goog yahay gudiga reer Dabataageed inay tahay gudiga kaliya ee ilaa hadda shaqadii loo diray ka soo baxday wax ka badan qabatay
nabadan aynu maanta ku faanano ee aynu qabsanay ilaahay baa horta keenay oo sabab ka dhigay inay timaado haddaan ilaahay keenna ma timaadeen laakiin asbaabteeda waxaa lahaa madaxweynaha dalka axmed maxamed maxamuud iyo xukuumaddiisa isagaa talada soo jeediyey isagaa dabada ka waday wuxuuna ahaa ujeeddadiisu inuu dadka ehelka ee walaalaha ee gobollada ku nool nabadda ku soo celiyo waxaa ka qayb qaatay culimaadudiinka gobolka ama dalka oo meel walba isaga yimi salaadiinka dalka oo meel walba isaga yimi iyaguna ka shaqeeyey dadaal weynna ku galay meel walbana u fadhiistay meel walbana u seexday iyadoo la kaashanayo xukuumadda iyo maamulka gobolka iyo ciidamada qaranka waxay furo u noqotay oo furihii nabadda u ahaa markii ciidamada qaranka la dejiyey saaxdheer iyo dharkeyn geeyey in wax walba ilaahay fudeeyey oo lagu dhiiriday oo kii rabay inuu wax sameeyo ee bilowdaha ahaa ee meelaha ama tuulooyinka aanu ciidanku joogin ee ka samayn jiray faldambiyeedka inuu qorigii dhigay oo nabadii qaatay oo culimadii nabadda waday iyo odayaashii nabadooda salaadiinta ahaa iyo mataqaanay dadkii u soo istaagay سمير سعيد بلا بلشة TV لا سعنود